waxaa si toos ah ku qaadaa dhigi doona hadduu eebin waanigo Axmed Xidha Xasan madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa sheegay in xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay xoogga saaraysa tababarida ciidan shacab oo qorshayaasha horumarineed kaabo noqda nabadgelyada sugaa mar ay ducfadii sagaalada ciidanka booliska gaarka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay qalin jibin lagu sameeyay dugsiga tababarada ee shaqaqamaad Soofaha ee xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya wariyaha Xasan Ciiga Cusmaan iyo faafahinta warkan munaasabaddan qalin jabinta dafcadda sagaalada ciidanka liyu booliska oo lagu beegay xuska maalinta urashada dowladnimada deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka dhacay dugsiga tababarka ciidamada yeeshay alaqamaha Soofaha ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar madaxweyne ku-xigeenada mas'uuliyiinta heer deegaan saraakiisha sarsare ciidanka liyu booliska iyo gaashaandhigga culimaadudiinka bulshada iyo kooxaha fanka iyo baambayda deegaanka ciidanka tababarka dhamaystay ayaa fagaaraha waxay ku soo bandhigeen taagtikada kala duwan ee ciidanimo ee dagaalgelida oo shiishka quraaraha yaryar ee isha dirqa ku aragto ay ka mid yihiin sidoo kalena fanashada goobaha tababarka loogu talagalay ee la isku qalaamarago taasoo ka qaybgalayaashuna ay aad ugu saacabatumeen ciidamada ayaa goobtaas ku soo bandhigay gaarida qurux badan iyadoo madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo salaad sharaf ka qaatay ciidanka liyu booliska ee qalin jabinaya kadib markuu soo indheeyay ciidanka liyu booliska oo ah ciidan shacab oo sanooyinkii la soo dhaafay guulo lagu dirsada ka soo hooyay kasoo amniga u gargaaridda shacabka ayaa dafcadan waxaa ku jira xubno si gaar ah loogu tababaray daryeelka caafimaadka dadka iyo dunyada kuwaasoo sii xoojin doona howlaha gargaarka ee ay soo wadeen rajmantiyada kala duwan ee ciidanka liyu boolisku madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo ahaa marti sharafka munaasabadan qalin jabinta oo ka hadlay ayaa ugu hambalyeeyay geesiyada liyu booliska ee tababarka dhamaystay sheegana in lagu soo beegay qalin jabintan munaasabada maalinka aasaaska dowladnimada deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan marka hore leeyahay hambaliyo qalin jabinta difacda sagaalaad ee ciidanka sida gaarka u tababaran booliska dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya hambaliyo leeyahay waxaana mahad mudan ilaaha suurtageliyay waxaan leeyahay mar kale hambaliyo maanta oo ah maalin taariikh ka mudan deegaanka Soomaalida Itoobiya maalintii ugu horeysay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo yeeshay dowlad deegaan dastuurkii dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ama dowladii ugu horeysay ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maalintii ugu horeysay ee la aasaasay ayay ku soo beegantahay maanta madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo dardaaran u jeediyay ciidanka qalin jabiya ayaa ku adkeeyay inay si ahaadaan kabaha iyo huga shacabku ka gashado qodaxda qabaga iyo dhibaatada dhamaanteed maadaama ay tahay sifa ay ku aanbaxeen dafcadihii hore uga qalin jabiyay dugsigan inaad xasuusnaataan inaad tihiin midihii ka dhashay ilaalada shacabka natiijada iyo guulihii ciidankii ka horeeyay soo hooyeen inaad noqotaan kabaha iyo adeegayaasha shacabka inaad yeelataan kala amar qaadasho iyo kala dambeyn asluubeysan inaad ku sifoodaan anshaxa iyo akhlaaq wanaagsan ee ciidanka inaad lahaataan feejignaan iyo dareen joogto ah oo ku salaysan muwaadino iyo adkaysi askarinimo inaad ilaalisaan xuquuqaha aadamaha guud ahaan si gaarana aad u ilaalisaan xuquuqaha haweenka carruurta iyo waayeelka iyo shacabka qaybihiisa nugul inaad ku dhaqantaan ilaalinta dastuurka dalka iyo kan deegaanka xeerarka iyo shuruucda boolisnimo kuna dhaqantaan oo kaliya sharciga inaad sii xoojisaan adeegyada wanaagsan ee aad shacabka u hayseen sida gargaarka bini'aadanimo mashaariicda horumarineed iyo ilaalinta xasiloonida iyo ammaanka shacabka oo ah waajibaadkiina koobaad inaad sii xoojisaan isjacaylka iyo isgargaarka ciidanka dhexdiisa iskuna halgantaan si ay cadaanin ku jirto ama ku dheehan tahay si aad uga dhowrsanataan nooc kastoo xumaana oo dhexdiina ka iman karta inaad isqiyaysaan bishii 3 bilood sanadkii inaad fulisaan waajibaadkayda ka saaran inaad shacabkiina iyo hantidoodaba nabadeeda inaad ilaalisaan inuu shacabku nabad ku soo baxo nabadna uu ku noqdo iyagii hantidooduba inaad sii xoojisaan caawinta shacabka sida taageeradii ay ciidanku u fuliyeen gobolka City gaar ahaan abaartii hadda waxa weeyaan la soo diristay oo u baahan mahadcelin iyo mahadsantiin ciidanka leeyahay
madaxweyne cabdi maxamuud cumar ayaa ka codsaday ka qaybgalayaasha xafladan inay faataxada u maraan geesiyadii naftooda qaaligahaad u huray amniga deganaanshaha iyo weliba nabadda maanta lagu raaxaysanayo nacawdeeda waxaana halkaasi loogu maray faataxada inuu eebba naxariista jannadii farduusa ka waraabiyo waxaan halkan ka xusaynaa oon doonayaa inaad faataxada u martaan ciidankii ku shiitamay waxa weeyaan halgankii aan soo gallay faataxa madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida Itoobiya ayaa cadeeyay inay xukuumaddu sii wadayso taageerada iyo ka warhaynta dadkii waxyeeladu ka soo gaadhay halganka gaar ahaan ciidankii shahiday carruurtii ay ka tageen iyo weliba xubnihii dhaawacmay waxaan doonayaa halkan ka cadayno mar labaad iyo mar saddexaad baynaan sii wadayno garab istaagga xukuumaddu garab taagan tahay agoonta iyo gaar ahaan xubnaha ku dhaawacmay waxa weeye halgelinay soo galeen laba xidig la guuleed aadan oo ku hadlay magaca dugsiga tababarka heshiyaala qamaha soofe ayaa ka warbixiyay noocyada kala duwan ee tababarkii ciidanku ku qaadanaya muddadii ay dugsigan ku jireen mudanayaal iyo marweyn balanjeedayaasha dufcadda sagaalaad ee ciidanka booliska gaarka ah waxay barteen aqoonta maskaxda aqoonta xirfadaha ciidanimo iyaga oo maalin iyo habeen u gudanayay waxbarashadooda sidii loo baahnaa haddaba balanjeedinta kadib hawl kasta iyo meel kasta oo loo diro iyagoo ku hawlgelaya mooraal iyo xirfadda ay barteen waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol inay ka soo baxayaan hawl kasta iyo meel kasta oo loo diro intaas kadib culimadiinka deegaanka ayaa halkaasi ku dhaariyay xubnaha dafcadda sagaalaad ee ciidanka liyu booliska dhanka kale halkaas waxaa abaalmarno kala duwan lagu guddoonsiiyey laamaha dowladda ee muddadii tababarku ciidanka u socday gacanta ka geystay kooxaha fanka